barnaamijka martida mikrofoonka cabdi ismaaciil samatar su-aasha ugu horreysaan jecelaha inaan ku weydiiyo waxa ay tahay sida aad la socotaba baarlamanka soomaaliya wuxuu u diyaar garoobayaa isniinta in uu doorto guddoomiye cusub kadib khilaaf muddo soo jiitamayey oo sababay in uu iscasilo guddoomiyihii hore ee baarlamanka maxaa laga filan karaa doorashadan ayay kula tahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa qof baarlamaanka gacanta ku dhiga oo iimaan leh oo edeb leh oo danta waddanka ka shaqaynaya aan cid kalena u adeegayn oo madax bannaan ciddii wanaag wadana la shaqayn kara inuu ka soo baxo meeshaasi walaal marka la eego rag badan ayaa u tartamaya oo doonaya inay xilkan buuxiyaan welina waxaa la dareemayaa in dee kala qaybsanaantii baarlamanka ay taagan tahay xaaladda guud ee siyaasadda dalkana waa la socotaa midda amnina waa la socotaa maxaa loo baahan yahay hoggaan noocee ah ayay soomaaliya u baahan tahay gaar ahaan marka laga hadlayo guddoonka baarlamanka mahmaha soomaaliya walaal ridwan ayaa jirta oo la yidhaaho mar idage mar idage allaha dago mar labaad idagana anaa istagay marka waxa weeye doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee xulashada ahayd ee madaxweynuhu ku soo baxay bishii February ee kal hore wixii la filanayay Soomaalida inteeda badan may noqon bay sheegayaan siday leeyihiin inkastoo markaa la soo dhaweeyay madaxweynaha ee doorashadiisa iyo wixii la mid ahaa marka qolooyinka baarlamaanka ilaan ummaddu ma codeynaysa dhowr boqol oo qof baa codeynaya 200 iyo waxoogaa ayaa codeynaya inay ka baaraan degaan ayaa muhiima dad qofka soo baxaya inaan una noqon ilaahay kama dhigay qof lagu hungoobo oo ama u shaqeeya qolo gaara ama ha noqoto golaha madaxweynaha uu xukumo ama cid kaloo baarlamaanka xulafo gaar oo ah inuuna u shaqayn ee u shaqeeyo wixii qaranka dhisi lahaa ilaan baarlamaanku waxa weeyaan waa hay-adda sharciga dejisa waddanka ee dawladda la xisaabtanta haddii qofka la keenaya uu noqdo qof dawladdu hay wadatana waa dhib hadduu noqdo qof dawladun had iyo jeer ka soo horjeedana waa dhib qof markaa dhexdhexaada oo qarannimada ilaalinaya ayaa loo baahan yahay markaa waxaan qolooyinka baarlamaanka haddaanu Soomaalida nahay iyo dadkii wax bartay haddaanu nahay ku dhiirigelinayna waxa weeyaan inay ilaahayga ka baqdaan ilaahayna ka baqdaan islaamnimadooda iyo Soomaalinimadooda dhowraan oo hay soo saaraan qofka ugu edeb badan ugu akhlaaq badan ugu qarannimo badan ugu islaamnimo badan ugu karti badan ee dhexdhexaadin kara dadkan siyaasadda isku haya si wax dadka u qalmaa meesha uga soo baxo walaal marka laga hadlayo baarlamankan cusub dabcan dhammaadkii December ee sanadkii 2016 waa tii la dhaariyay inta badan mudanayaasha labada aqal baan iraahdee hadda muddo sanad ka badan ayay shaqaynayeen waxyaabaha loo igmaday ama loo dhaariyay ilaa iyo hadda maxaad ku qiimeyn lahayd ma ka soo baxeen shaqadii loo xil saaray mise wax badan ayaa dib u dhacay oo waqti ayaa lumay waqti inuu baarlamaan ahaan ka lumay waa wax jira weeyaan dawlad ahaanna inuu waqti ka lumay waa wax jira weeyaan maalan walaal haddaan tilmaam ku siiyo waxa weeye arrinta ugu weyn ee ah in la meel dhigo waxa weeye dastuurkan ku meel gaarka sidaynu ognahay waxyaabo fara badan oo wanaagsan way ku jiraan in ka fara badan oo ummadda dabrasa oo burburinaysa qarannimada iyo walaaltinimada iyo midnimada Soomaalidana uu ku jiraa marka waxa ahayd waxyaabaha ugu horeeya in guddi farsamo horta loo saaro oo soo nadiifisa bahalka intaan guddiyada baarlamaanka golaha sare iyo golaha hoose loo gudbin waxaad moodaysaa inay iska cagajiitamaso oo imika sanad iyo dhowr bilood baa ina dhaafay 2 bilood hadday baarlamaanka loo xisaabiyana in ka badan bay noqonaysaa 3-4 bilood bay noqonaysaa marka waxaad moodaysaa taasi aad iyo itaal ayaa looga hakiyay xataa guddiga la leeyahay doorashooyinka ee waddanku leeyahay dawladdii hore samaysatay in dib loo nadiifiyo nafteeda ayay ahayd oo musuq badan baa ku jira sidii ay u timiday meesha marka waxyaabaha arkaanta ee muhiimka ay kuwaasi ka mid yihiin dib u dhac weyn ayaa ka yimid waxa kaloo ku xiga weeyaan in dastuurka sida looga shaqeynayo waxa weeye 2 siyaabood kow guddi farsamo oo aan cidnaba u eexanayn oo eegaysa siduu iskugu xidhan yahay dastuurku wuxuu keeni karo ummadana u macnaysa waddankoo dhan marta intii la mari karo lama sameyn walaal ta saddexaad in qabsoomin baarlamaan ahaan ilaan baarlamaanka dawladda la xisaabtamee
waxa weeyaan shuruucdii lagu dhisi lahaa hay-adaha qaranka oon dhammaystirnayn weli, ama ha noqoto dadka shaqaalaha ah sidii loo xulan lahaa. weli waxaa la wadayaa inkastuu dastuurku una odhanayn haddii jaga soo baxda, ama ha noqoto xeer ilaaliyaha sare, ama ha noqdo maamulaha guuda auditingka, ha noqdo baaraha, waxa weeyaan 4.5 baa lagu soo xuraya. 4.5 waxay ahayd marka ugu horeysaba inuu ku joogsado markii baarlamaanka lasoo xuray intan kumeel gaarka aynahay. marka waxaad arkaysaa shaqo fara badan baarlamaanka kama socota ee huuhaa fara badan ayaa ka socota. dawladduna taas way la wadaagtaa walaal. maalmihii ugu dambeeyey waxay dadku aad u hadal hayaan professor Samatar arrinta la xiriirta dastuurkii Soomaaliya oo la xaday kadibna waa la helay ayaa la leeyahay, baarlamaankiina nuqul kamida ayaa loo qaybiyey. maxaa arrintaas looga dan leeyahay kula tahay? maxaad ka dhex akhrin kartaa marka laga hadlayo dastuur la xaday oo haddana dib loo helay? waxa weeye riwaayaddu ma dhammaato ayay reer Jabuutigu yidhaahdaan walaal. waa riwaayadii oo laba lugood ku socota ay noo timiday oo lagu leeyahay dastuur baa la xaday. hortaan waxaan hayaa dastuurkii 60kii ee kan oo asaaska ahaa waan hayaa. waxaan hayaa originalski baan hayaa. laakiinse siday ku dhici kartaa bal hawlaha kaleba ha la iska soo dhaafee qaran dhisidda iyo waxaasi haba la soo dhaafee war bahalku miyuuna dastuurku miyuuna meel secure, meel amnigiisu wanaagsan yahay oon cidi qaadan karin miyuuna ku jirin. markaa waxa weeyaan sidee loo ogaan karaa kan la leeyahay waa la helay inaan wax lagu soo darsan? sidee loo ogaan karaa? markaa baylahda baarlamaanka maamulkeega taalla ayay ku tusaysaa. waxa weeyaan meel aan laga qaadan karin waa inuu xabadda ugu horeysay originalku waa inuu yaalaa kii asaaska ahaa. baarlamaanka qudhooda dee xafiisyadooda inay ama meesha joogaan mid walba uu haysto ayay hayd. laakiinse in iminka la dhaho kii hore waa la xaday, waa la soo helay, waa loo qaybinayaa, cid eegaysa oo imtixaanaysa inuu waxaan sax yahay kalena lama hayo. baylahda taalla xagga dawladda iyo xagga baarlamaankaba unbay muujinaysaa walaal. aan u soo noqonno arrimaha kale ee saameynta weyn ku yeeshay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan khilaafaadkan dalalka carabta ka taagan oo aad moodid in Soomaaliya laf ahaanteeda hadda ay u nugushahay ama ay u nuglaatayba. sidee la isaga moosi karaa marka dhibaatooyinka noocan oo kale ay dhacaan, Soomaaliduna ay isula fahmi karaan in arrimaha dibadda marka laga hadlayo in si uun looga madax bannaanaado ama dhibaatooyinka ka dhalan kara dawladaha kale waxay isku haystaan aanay Soomaaliya dhibaato u keenin? walaal waxa weeye haddii marka ugu horeysa waa inay dawladdu lahaato qorshe siyaasadeed oo strategic waxaan lagu yidhaha halbowle ah inay haysato. ma jirto taasi. meel hay ku qoran tahayna lama arag. xamar markan tagana ma maqlo. waxa weeyaan wasiir baa la keenayaa, waa laga qaadiyaa, mid kale la keenayaa, waa laga qaadi doonaa. qofkan jecel ahaa la keenayaa, qofkan neceb ahaa laga kaxaynayaa. siyaasad hagasa waxan ma jirto walaal. waxa weeyaan kolba kii soo gaadha ayaa wax ku darsanaya, kii hore wuxuu keenay buu masaxaya. marka waxay arrintan hay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar isku haystaan in si degan looga baaraan dego, xataa haddii la leeyahay dhexdhexaad baanu ka nahay. waxa weeyaan masalan Kuwait oo kale waxay waday ladqabo ayay waday inay carabtan isku keento isfahamsiiso. haddii dhexdhexaad laga noqday taa dee in la dabagalay ahayd. Kuwait haddaan inaku mid haynaan haysan oo la isku dayo in labada qoloba la fahamsiiyo wanaagu inuu yahay inay wada shaqeeyaan, annakana dhibtooda hanu iska ilaalino. marka waxa weeyaan waxaasaanu yeelnay. hadday Imaaraadku waxaa sameeyaan waxaasaanu yeelanaa. waa carruurtii tirsanaysay iyo gabdhihii tirsanayay un waaye. markaas haddii la keeni waayo strategy waxa weeye iminka halbowle waxaa laga baqanayaa inuu go'o oo la yidhaaho waa kan Cabdiweli Gaas iska tegay meesha isagoon ixtiraamin qarannimada Soomaaliyeed uu ra'iisul wasaaraha ka ahaan jiray. waxa weeyaan Hargeysa waxa ka socda waad arkaysaa, gobollada kale waxa ka socda waad arkaysaa. marka waxa weeyaan dawlad wada hagan oo qorshe ku wada socota oo ku soo heshiisay ma jiro. taasi haddayna jirinna waynu ku naafoobi doonaa waxyaabaha carabtu wadaan walaal, gaar ahaan Imaaraadku ay wadaan. iminka masalan haddaan kusii wado waxa weeye Sacuudiga waxaad moodaysaa isagu inuuna sida Imaaraadka u cadcadayn in Soomaali la kala diro. maxay u noqon weyday in barnaamij asala Sacuudiga lala qabto oo lala baaraan dego oo iyakaad moodaysaa inay ka yar dhigo nugul yihiin Imaaraadka oon dan gaara ka wadan Soomaaliya inay kala gogodee? maxaa iyaka loola shaqaysan waaye? waa su'aalaha meesha yaala. waayo de waxaan jirin siyaasad dibadeed iyo xarfad dad leh oo meeshaa jooga
oo waxaa ka midha dhaliyo walaal. waaya aad iyo aad aa umahadsan tahay. su-aasha ugu dambaysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waa dabcan dhinaca kale markaan eegno Ethiopia ra-iisul wasaare cusub ayay yeelatay. Soomaaliya iyo dalalka dariska waa la socotaa siyaasadahooda iyo dee Ethiopia inay hadda qayb ka tahay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM. maxaa iska bedeli kara siyaasadii arrimaha dibadda Ethiopia ee ku aadanayd Soomaaliya? walaal waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa yimiday oo nin muslim iyo kristan iska dhaleen. waxaad moodaysaa waa ka jigjiga tegey, waa ka maqale tegey, waa ka gobolka axmaarka tegey, gobolladii kale tegey. waxyaabo badanna wuu ku dhawaaqay, laakiinse soomaalidu iyana ku khaldamin in amuuraha siyaasadda iyo security-ga dadkii hore hay joogaan, isaguna uu ku khasban yahay amuurahaasi inuu muddo la shaqeeyo ilaa intuu isagu samaysanayo sal ballaadhan uu dawladda ku leeyahay. markaad Ethiopia waata maalinta dhaweyd ku dhawaaqday, maxaan malaynaya weekan bayba ahayd, in ciidamada Afrikaanku sii joogaan oo muddo dheer hay sii joogaan, iyo ka dantooda ayay ka wataan weeyaan. marka hadduu ra-iisul wasaarahan cusubi barnaamij cusub wado, waxaad moodi lahayd in anaantiisii ama iifkiisii hore dhalaalkiisii hore halkaasi ay ka muuqan lahayd oo odhan lahaa Soomaaliya sida loo nabadeeyo bal dib ha la isugu noqdo, qorshihii hore shaqayn waa oo imika waxa weeyaan min 2007 ilaa maanta waa 11 sannadood ayaa la rafanayay, wax weyne muu soo kordhin xamar mooyaan inta badan iyo dhowr meelood kale mooyaan. marka ma arkayo wax weyn oo siyaasadda Ethiopia iska bedelay markay noqoto amuuraha Soomaalida. hadduu dee ninkani la yimaado waxa weeyaan si degdega in loola kulmo, in la fahmo, in khibradiisa la ogaado, markuu gobolka Oromada ka shaqayn jiray wax qaban jiray iyo sidoo ahaa in la soo ogaado, cilmi baaris degdega in lagu sameeyo si loo helo jawaab xiriir cusub. hadduu inaga bilaabmayo isagu qorshe cusub la yimaado, innaka qorshaheena cusub markaa muxuu yahay? taana waxaad moodaysaa magaalada xamar siyaasiyiinta jooga inay ka hurdaan walaal. aad iyo aad baa umahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. ridwaan walaal adaa mudan. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.